wixii inaad isku disho oo dhibaato isku geysato madaxaaga dhib ha u geysanin mar walba waxa muhiim ku ah caafimaadkaaga isfiiriya hadda sawirkan u jeedaan waa madaxiisa waa sidoo madaxiisa yahay qof ma shaki ugu jiro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه السلام وأنا موسى مش أنا جالس عطانا وكلنا اللي بدار عاوية دمان قاشان بورت الرق الدمر وما سنتين سي شرفت لها سكو عاوسان أنا جانا ذي عاوسان فضلا هذا نوع سبتاي سبسكرايب لايك شير كومنتي أنت وكمان مرنا وياه إن شاء الله ما أنت وحنا وذا نتيجو هردعة وأدو في عن إن شاء الله يا نوذا وأحمد أنا جانا درهالي جلين دونتو ودمان يرجلين نو نقول دونتو كل جن وياه إن شاء الله معك صهري واي waxaa ka soo horay fadlan mar walba waxaad ogaataa 17 sano jir ilaa 25 jir iska ilaali waxyaabaha madaxaaga dhibaatada u keenay mustaqbalka dhow ama mid ka fogba timahaaga dhib ku noqon doono ka digtoono waxyaabahaas iska ilaali runtii jilcisaha noqoto madoobaysaha noqoto kalar ha noqoto jeel ha noqoto waxyaabaha adiga aad nan kugu jirin oo runaantii iska marsaa quruxda aad ka raadinaysa laakiin hadhow koofi ayay kugu soo koobi doontaa adigoo da'da 20 sano jiro ama 22 sano jir ama 25 sano jir ayaad koofi ku soo aruur doontaa heer waxaad gaari doontaa hooyada iyo aabaha madaxaaga ka qariso waaya intaas aad gaarin fadlan hadda digtoonow iska ilaali kana fogow waaya aan gudubno barnaamijkeena marka dhalinyarada waxay ga soo codsadeen barnaamijyada dhalinyarta qaybtood ma aqaan inaysan si fiican ula socon laakiin way ga soo codsadeen marka ugu horeyso aad darmaroolka isticmaalaysid fadlan la soco madaxaaga uu xoqaya oo neerfo kiciniya dhibaatooyin ay ku keenaya ma dhibaatooyinka madax xanuun madaxa ku xanuunaya neerfaha ku kacay okay maqaarka ayaa isna dubka ka kacaya maqaarka ayaa ku fiiqmaayo waa maalmaha ugu horeyso intaas dhib male hadhow wixii caadi ayuu ku soo laabanaya wixii normal ayuu ku soo laabanaya normal si caadi ayuu ku soo laabanaya waayahay سليد استعمال كده ضد مدح معناها كوريرا اوكي حدو مدح كوريرو ايضا وكوكينو عقب برر مدح برر وحارت برر بعدش كذا ما تفضل كدكتونو اسكيلالي تاس وحلقه اني قطر كوغو تاي او صوبتا الرجي او كوتاي او اد كو ديبايا marka kaas iska dhaaf ayaan kugu la talinayaa waayahay okay maxaa kale oo loo baahan yahay fadlan marka waxaan ku sheegayaa adi marka isticmaalaysid wixii hadii uu ku dhibo ka fogow darmarool isticmaashay saliida isticmaalsa labadii hadii dib kugu noqdaan fadlan iska ilaali darmaroolkan insha Allah si tartiib u isticmaal maaha wixii inaad isku disho oo dhibaato isku geysato madaxaaga dhib ha u geysanin mar walba waxa muhiim ku ah caafimaadkaaga wax walbana ka hormari caafimaadkaaga taas ayaan kugu la talinayaa okay insha Allah waayahay aniga waa jeclahay darmaroolka inaan isticmaalo insha Allah waxaan idin soo gudbin doonaa oo kale waxaan idin soo gudbin doonaa qoraal iyo sawir walaalka ila soo walaa sawirka ma soo gudbinaayay sawirka fasax uma haysto inaan soo gudbiyo laakiin qoraal ayaan idin soo gudbinayaa qoraalkaas oo ah inaad hadda meeshan ku arki kartaan qoraalkaas akhrista fiiriya shaashada inaan saara insha Allah okay wad aragtaan insha Allah waad ka bogateen ayaan jeclahay وايه marka aan u gudubno darmaroolka muhiimada fiiri meeshan oo kale markaad xoqaysid wixii hadaa ku cusubtahay oo kale qolofkii uu ka kicinaya jirkii meeshii cadcad ay ku noqonaysaa qaanjeer meel oo mutaqaana dubka ka kacay waxaas ayay ku noqonaysaa fadlan intaas oo dhan hadaa dareentid iska isticmaal saliida ilmaha kale isticmaal markay hooshi aad dhameysay madaxii ku qallo markaas isticmaal iskana ilaali inaad madaxaaga dhaawac u geysto madaxaaga dhaawac u geysan ka ilaali dhaawac ka digtoonow inaad isku dhaawacdid oo wixii dhibaato fara badan aad soo geysatid runaantii mid kale idin sheegay had qoraalka soo aragteen wiilkaas darmaroolku amaanaya saa isoo qoray wallahi waa yar asxaabteena kamid ah gaashaan buurteena wuxuu ila soo wadaagay sawir hadda kor aan idila soo wadaagay natiijooyin aan idila soo wadaagay marka waa dadka dagaalka kula jiro salxiyaha dagaalka kula jiro way aad buu salxaya ugu dagaalama ma sha Allah waa natiijo fiican ayuu ka gaaray natiijo aad u qurux badan ayuu ka gaaray marka sawir dambe ayuu ii soo diray oo aad u qurux badan kuwii hore ka sii qurux badan iyo haddana qoraalkaas ayuu ii soo raacay marka aniga waxaan jeclaystay qoraalka inaan soo qaato maadaama uusan sawirka dheyn la wadaag dadka
hadduusan qofka ila wadaag dhihin marka taasna waa ma fiicna waaya marka qoraalkan soo qaatay waana ku mahadsan yahay walaalkay qoraalkiisa okay darmaroolka la socda fadlan dhaawac hadduu ku geysanayo madaxaaga ka ilaali inta badanna 0.5 ka isticmaala waa fiican yahay waa number aad u fiican number maaha oo madaxaaga dhibaya maaha waa number aad u fiican oo hooshii ku qabanayo waaya aan u gudubno marka programkeeni aan u gudubno natiijadeena u gudbeena marka walaalkay insha Allah natiijadiisa ayaan idin tusayaa oo aan jeclahay inaan idin la wadaago okay waaya يقرأ على نقض حير يدو الغاتا واتنا الحمد لله نتيجة هردع واي ويل كان ولكن مدحي سفيرية أتصور كان أوجدان ومدحيس وسيدو مدحيسي قف ما شك وجرو ولكن لكن ما شاء الله ود ذالي إنتان هدا أوجدان فيرية وأركتان فيدان وإسكسارنتا والرباني مقعضو أنا حتى وجرتا فيداس أنا حتى وجرتا لكن ما قعدوا ديب ماله اسبدلكو إيمانيا ترتيب أنا ما عنده تجمع واحيري لكن ويصوب حيان الحمد لله والله ويصوب حيان ما شاء الله مانتي ويصوب حيان لكن هو ترتيب وصوب حيان لكن مالي ودنا دو يصوب حيان تما في عنا صوب حيان لكن وقان دونا إن تمي السيد الرب صوب حيان إنكالي إن شاء الله دتك مع دام عيدان تسوى مالك لان كهذا دونا أوكي هذا السي waxaan ka hadlayaa sawirkan hadda meesha noo saaran waa ujeedaan wiilkan walaalkeena darmarol ay isticmaalaan madaxa waa ujeedaan waad ujeedaan madaxiisa ma sha Allah isbedelka macnaha aad isbedel ma waa intuusan isticmaalin natiijada intuusan gaarin waay laakiin waa natiijo hordhac ah oo ah 3 week mise 2 week waay adi intaas waa natiijo hordhac ah marka darmarol iyo aad isticmaalay midna adiga ku xisaabtan adiga hadii madaxaaga uu 4 week 5 week ama 10 week uu natiijo ku keeni waayo dadka dhan madaxaaga xisaabin ha xisaabin waxaan ku weydiinayaa tusaale hadaad imtixaanka iskoolka ku dhacdo dadka dhan ma ku wada dhacayaan waa ku kaliya laga yaabo dadka inay ku wada baasan ani kaliya ku dhacdo marka waxa waaye waxaas dhan marka waxa waaye qof walba iyo dadaalkiis hadda ma sha Allah walaalkii hadda soo yahay wada aragtaan oo xaaladiisa meesha ay tahay okay waa war ma jiro okay لكن وهذا مواسدي وكنا صور كلمات ونتيجة ومعناها هردعة معناها وحوي وحود سوبية ذلك يسوبية يدر مروك استعمالي وهو مدحي وأسوم مذوبادي ما شاء الله معناها ماشي دم ويس وضع خبز مذوقي هرواي ونتيجة هردعة إن عاد وحسوب بسي وحيابها كودي رجلنا واي أو دذال هري الصحاب واي ماشي هذا مروح ما هالنتيجة لكن وحوي دذالكي افتين كوسو افتين واتقانان كوسو افتيمي إناد هوري أوسي سعوتيد marka hadda wuxuu helay dhiirigelin ayuu helay intaan waxay u tahay qofka marka heshid iftiin fadlan hore u sii soco ha fadhiisanin wixii hadaad ka fadhiistay dib u laabanaysaa laakiin hadaad aragtid inay meeshii ku soo iftiintay si wad si aad uga miro dhalisid dadaalkii hadda tan waa hordhac ma han natiijo complete natiijo dhameystiran ma ama natiijo dhexdhexaad ma laakiin waxa waaye waa bilow fiican way ma sha Allah marka walaalkeen waxa leenahay وكم هسنياي وحنا إذا شجيا هدات بلوغان هجيت فضلا هرو سيسوع كل هيا وان أركض دونا إن شاء الله نتيجوين كدم بيا وجار ونلصو ذاك دونا وان أركض دونا إن شاء الله وسوينا وحواي عدنا وكم هسنيا آد وكم هسنيا مع دام وإنت نلصو ذاكي هو قروح ضبطن ما شاء الله يعني لنا وحاني قال لي قاصة أنا وعندها يا وهو هلي افتينا قروح بدن أو لها جدك وكاساي سيسو معنا أيها هلي أنت أصنع ودلال وساكن أوكي مرك إن شاء الله وماسية ولكن ما شاء الله يعني لنا الله بركيه يدمان قشان برتا قفل بأنا جنجميدا مراد كيسة الله أسال الله بركيه ويه مرك واحد يشجع أنا هذا تن أيان ربنا مرسل لك سوحة كهريو مر بالله صعدة تن ومرسنية تن جركة أيان جانس ومرسنية جركة أيان مرسنية مر بينا كتجو قارك أنا ربا إنا مرصدو قارك وقته بلايس مدحة وقتي جارة واي حلية أو كلا لهيسية لكن قارك وقتي والبا إن شاء الله هدي لو وقت النقطة هدي سدح وقت النقطة عن وهلا إنا مرصدان جعله قارك تردان كالله رمتي صوتا أنت جانس أيا ربا إنا وهلا ماشان وميل عن وهلا كرو
waqti fiican aan ku marsan karo taasna waxay macnaha u tahay sababta u marsanayaan wax kale maaha waxaan u marsanayaa inaan natiijadeeni waqtigii loogu talagalay 3 bilood bal inaan wax ku keeni in kale insha Allah inaan ku aragno haddii ay dadaalkaas imaado meeshaan alxamdulillah noqoto wax loo baahan yahay waayo oo anaga dhan aan u baahnay okay marka taasaan rabaa insha Allah inaan ka gungaaro waya ka alxamdulillah waad u jeedaan sababtan san ugu kulleena waxa waaye wixii waxay u baahantaa timaha ugu baahna muhiimadda waxay tahay salka hoose maqaarka ama ruudkan hoose ayaa looga baahan yahay looga baahna wax timahan kore wax oo isla markii color ka dhigayo timaha maaha intaasna haddaad fahantaan waa alla mahadiis wax oo timaha color ka dhigayo maaha la socdo kan barnaamijyada noocaan oo ciradana subaxdii ayaad ka bogan kartaa video gaar ayuu leeyahay kaas waa u gooni oo ugu talagalay inaan ciradaas gooni sababtoo ah birta waxaad weydiinaysaa intee ka soo bilowda cirada sababtaas that's why aan ugu suubiyey video gooni ah oo cirada leh ku saabsan iyo waqtiga cirada oo subaxdii inta badan aan soo geliyo marka waa kaasa insha Allah waa inaan dadaalka aan badinaa dadaalku maaha wax iska imaado dadaalku wax la keensado ma fahantaa dadaan dadaalin oo wixii aad ku dadaalin ma keeni kartid hadda laakiin madax waxaan u marin laahay waxaan rabaa inaan marsado castor oil ayaan rabaa inaan marsado insha Allah wixii isma dhex galayaan labadooda isma qaadanayaan okay mar walbana waxaan kugula talinayaa intaad isticmaalin ka hor waa inaad luxdaa geedkan okay waa yahay hadda waxaan rabaa marka inaan marsado saliideydii castor oilkii ayaan rabaa inaan madaxa marsado waa yahay waad u jeedaan sheekadu waa intaas insha Allah waana mahadsantihiin akhyaarta oo qof walbo anaga naga midana insha Allah hadadaalo fadhiga ka kaco ilaan haddaad iska fadhiid wax ku imaanaya male waxaad suubin kartid male laakiin dad kor isku soo qaadid wax waad qaban kartaa insha Allah waxna waan qaban karnaa dhammaanteen insha Allah is caawino fadlan waxaad awoodid ku caawi walaalka wixii ra'yi wixii tala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh